بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى يكون ما يلو عدي دبنبك الله كقادو عدي دل الله وفي انت بهن الله ديقو انت بكت الله بكسيو انت دمت الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستا اننا الله نوغا دبا نحرستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Saddex qodob baan ka hadlayaa, laakiin intaanan gelin waxaan tacsi mug iyo miisaan la u dirayaa ummadda Soomaaliyeed. Anoo uga tacsiyeynaya abwaan Allah u naxariistay Sugaal Cabdulle oo aan ogaaday dhowaan in lagu dilay Muqdisho oo qarax lagu dilay. Ka Soomaali buu ahaa, Soomaalinimo aaminsanaa, Soomaalinimo ku shaqeynaya cimrigiisa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala حسن الخاتمة هو قديقو شهادتنا هو أقبله مجرمين تدلي الشباب يخوارجتي تكفير كهانة إلهي سبحانه وتعالى نار عقابك هو بديو كبدا وحبرتي وكتب الدبدة ومال قشتي وبيرها فرتي ودلي يدنا وكتع سيانية وحنا من سنة تون سنة هنا انت لا تدري سنة هو مركز الصوماليات هي الصومالية ضدك أقوان تلينا يدلك قصة نقدام بهالدلي iyo NGO-yada beeraha ku bixiya lacag dadka beeralaydaasi isaga daayaan beeraha kuwaas dilay gaalada iyo balaayada ay wadataa dishay saan filayo oo qiyaasayo aan ku toonsanahay. ilaahay ha u naxariisto iyadana ehelkeeda iyo qaraabadeena sabir iyo iimaan ka siiyo. saddex qodob. qodobka koowaad waa October 27 2024 madasha qaranka oo aan wali wax ka soo bixin isuguna soo hartay saddex maamul goboleed iyo dawladda dhexe labana ay ka maqan tahay kelmadan ka oranaya Axmed Madoobe iyo doorashada Jubbaland iyadana kelmadan ka oranaya bixi iyo doorashada Somaliland ka socoto dhawaan November 13keeda la filayo inay dhacdana iyadana kelmadan ka oranaya. waa markii koowaad madashii qaranka waxba la kala iibsaday waa xog waxa lagu heshiiyay saddexda maamul goboleed oo jooga aqbaleen in sanad loogu daro oo maxay ka faa'iideyaan hal sano maandaydo madaxweynuhu iska siiyay oo sharci ahayn way qaadanayaan. waa sharci daro. madaxweynuhu dastuurkii waa laalay, isaga sharcigii noqday, wuxuu rabo isagu sameynaya waa u kordhinaya. horay uma dhicin, isaga u kordhinaya. wali dawlad ka horeysay oo arintaas samaysay ma jirto. waa dawladii koowaad oo bilowday inay dastuurka laasho iyaduna maandaydka dadka ay siiso. shalay wuxuu ka qeylinayay dictator baa jooga. dictator taa ka badan adaa yaqaan xasano. waxaad shalay diiday oo dhanna maanta taagan tahay. laba maamul goboleed baa ka maqnaa, baa farmaajo ka maqnaa oo kula diray doorashada ku qabsaday. waxaad la taagnayd qayladaadii iyo buuqaagii meel walba laga fariisan wahay. waa in wada rogol ay noqotaa, consensus baa loo baahan yahay, dictator baa tahay. maanta adigu dictatorkii ma tahay. wixii aad shalay ka qaylinaysa maanta ma haysaa. qodob adigu ma isu naqdidaa oo shalay wixii aad sheegtay maanta cagsigeedii ma wadaa. أتنهى عن خلق وتأتي بمثل عار عليك إذا فعلت عظيم. خطرت أيلا ذا هيبان كل شيء يزيد فرماج وقدر بهالشيء. أدنى لقى ربينا وقدر بهالتي. واحد تري أنا وحنا وقف ما قف يقعد يجوا حيربان سند ما نديده. لا بوا حيربان لعك تبجت صبور كنا قاتانو يلا عديد. وحاكو قرن شرعي بولا السجل لو قيب صار لعكته 60% ما من القبلية عليه. لعك هذا وجود ما يسبقوا له 10 مليون بيهاي. markay 60% iyaga ah over 80,000 inay qaataan 80 milyan inay qaataan bay oo markaas shanta maamul goboleed walba dhowr iyo 20 milyan ilaa 20 milyan ku dhow u qaato. waxaad siisay afar baa u turto intii kala aad qaatay 90 milyan baa qaadatay 30 baa siisay. ma u jeedaa yani wax la yaab leh noqoto. taasay iyagu rabaan afartoodaas iskaga filan maadaama aysan kharash iyo mushahar iyo bixinayna iyagu ay qaadanayaan oo ay personally u maal gashanayaan doorashada soo socotana ugu diyaar garoobayaan. waxay iyagu marka intaasay qaateen. adna maxaad qaadatay? waxaad tiri one man one vote baan rabaa. okay shalay waa diidanay, maanta waad rabtaa. sax. shalay maxaa dhacay? laba maamul goboleed baa diidanaa. maanta maxaa dhacay? waa isla iyadii. shalay marka waxaa diidanayd see maanta u rabtaa. labo 4.5 bay Soomaalidu wax ku qaybsataa. labaa ka jooga 2.5 baa maqan. laba beelood beesha Isaaq la yiraahdo horeyba u maqnayd oo been baa shakhsiyaad meelaha lagu hayo iyo heshiis lagu yahay maamul goboleedyada heshiis ku yihiin inay matalaan lagu sii matalsiinay
daaroodkiina waa maqan yahay hadda waa kaa baxay beeshii shanaadna waa maqan tahay haye maxaa kuu soo haray laba beelood doorashada marka laba beelood miyaad madaxweyne u noqon doontaa oo intaa camcamiisida xamar iyo meelaha doorasho ku qabatid iyo dhuusamareeb iyo jawhar iyo magaranaysaa baad qaadanaysaa anigu ma aaminsani mana waafaqsani maamul goboleedyadu inay madaxweynaha iyo dowladda ka hor yimaadaan laakiin madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu dadka kasbado haddaa lacagtii u diidid oo aad xilkii u diidid oo aad sharaftii iyo karaamayntii u diidid oo aad tiraahid doorashadii xataa anaa iska daaya anaa idiin kordhinaye seebay legitimasigaaga u aqbalayaan oo raalli ugu noqonayaan shalay farmaajo muxuu kaga dabaashay adna lagaa rabaa maxaa ka dhalanaya haddaad laba u qabatid laba iyo barna ay kaa maqan tahay majority kaa maqan yahay waxaa dhalanaysa iyaguna parallel process inay sameeyaan oo meel kale madaxweyne kale lagu doorto laguna kala tago maxaa lagaga dabaashay shalay lagaa rabaa maanta farmaajo 17 September dhuusamareeb 1 2 3 kulli 17 September wuxuu aqbalay gacmuhu taagay qortuu yiri dani baa qortay gacantiisa ku qortay markaasuu aqbalay siisa ku qaatay madoobana mid buu ku darsaday oo saddex marka loo qaybiyo gado meel halaysiiyo yiri 8 halaysiiyo 24 baa yaal 8 aan qaato 8 dibalis waa soo noqdeen baydhaba la isla tagay February iyagii baa ka noqday markay ka noqdeen isagu doorashadii oo dhan waxay yiraahdeen wareeji xasan oo adaa kamid ah dadkii la doorashada wareeji ku wareeji ra'iisul wasaaraha markii hore ra'iisul wasaaraha dhis ilaa markuu dhisayna ku wareeji farmaajo waa ku wareeji dictator baa ku sheegtay adigu ma ogolaan doontaa xamse inaad ku wareejisid dalku u tanaasulay si aan loo kala dhaqaaqin labadaasna u yimaadaan doorasho ay iyagu wataan oo dambiil ku wataan oo dani aad ogtahay inuu 26 xubnood uu hal saac lagu soo 16 xubnood oo boosaasay yaala hal saac lagu soo ururiyay hal ergana ay dooratay aad ogtahay axmedna uu ceel qaal loo geystay 16 xildhibaan aad ogtahay idigoo dambiil ku watay keensadeen waayahay in laga raynayo wuu ogaa laakiin dalku u tanaasulay adigu ma u tanaasuli doontaa mise waa lagu kala dhaqaaqaya madaxweynihii ugu dambeeya noqon doontaa 4.5 kiina 2 ma ku soo ururisay 2 ilaa 4.5 minus 2.5 waa 2 laban u qabanaya loo joojin maayo shalay iyo maanta xasanow dalka u tanaasul una tur qodobka labaad madoobe wuxuu tagay Kenya xamse iyo xasan sheekh waxay ku dacweeyeen Ruto cid kastay la hadleen Ruto gacanta u qabto u maroojiyo waa ogaa inaan la yeelayn maxaa dhacay waxay ku yiraahdeen doorashada qabso iska wadaaf inay taageereen diyaarad hub ah bay ka daba direen oo maxay tahay macnaheedu xataa hadduu ku soo weeraro iska dhici laakiin waxay ka codsadeen hal mas'alo waxay yiraahdeen inta January la gaarayo oo dinka la dooranayo African Union ka loo dooranayo ku guuleysanayno xasan taageeran ka rabnaayo u kaadi doorashada waxa laga yaabaa marka ilaa January inay noqoto taasina waa qodob qodobka ku xiga waxa weeye xamse ayaa wuxuu sheegay axmed madoobe hadduu ka joogsan waayo doorashadan uu ku farabaxsanayo kismaayaan fariisanaya annaga isku reer cabdullaahi anaga wada ah ciidamada meesha joogo uu ku faanayana aniga reerkaygaaba ka buuxaba waa la qaybsanaya marka ugu yaraato wax ku qabsaduu waaye anaa ku qabsanaya kadibna dibadaan dhigayna doorashadiisaan kula tartamayna banaankaana dhigayna iyadana bal waa ogaanaa meeshay ku dambayso qodobkaasna intaasaan ka oranay qodobka ugu dambeeya biixi doorashadiisa waa dhowdahay waa suurtagal inuu ka baaqdo haddii uu qabtana laba arrimood buu damacsan yahay marka koowaad darafyada 6 magaalo oo isha iyo lagu codeeyo digitalka waxba badan kama qaban karo in uu ku shubto oo haa meeshii ahayd maya meeshii ahayd haa uu ku shubto waa suurtagal ama uu ka shubto sanduuqi ciro intii ku jirtay xagga lagu shubo waa suurtagal oo guddigu ay shaaciyaan boob waxa kaloo suurtagala waxa kaloo uu rabaa darafyada iyo tuulooyinka iyo miyiga wali warqad baa lagu codeeyaa kuwa inuu boqolaal ka soo qorto kumanaan kun u soo qorto ku darsado oo tirada codeysaa ay ka badato tiradii sanadkii hore codeysay tripkii hore codeysay labo hadday shaqayn weydo inuu xoog ku haysto rabaa oo ku dagaalamo 5 kun oo askar u samaystay oo reerkiisa abeeshiisa mawjada habaraw kow qaar baa booliska dharkoodii hadda loo geliyay already oo integration lagu wada hubkiina isaga haysta maxaa imaanaysa cirra waa diidaya garxajisna waa diidayaan horeyba waa u diideen waana ii shaqaysa 5 sano indhahan ka geliyay labana waa ugu daray
حديدي ما أنت يعني دمت أنتي وكلا كسمية حديدي هبا هايسكا قيليا بولو هايسكا تخضو أنا وحيقا وضنيا موسنا هل كاسو صعدا بل سوى أوغانا dadka shacabka ahi haddii ay doorasho caadi oo xaq oo xalaal galaan waa loo jeedaa ummadoo dhan way aragtaa wadani baa guuleysanaya laakiin haddaan wax kala maqalno haddee kelmadda uu rabo inuu xigtana waxa ah kelmaddii cirra maalin dhawood yiri oo muuse hadduu guuleysto aqbali mayno macnaheeduna uu ka waday si shaxshaxuusan u dhihin wuxuu ka waday boob ku wadahay dadka oo dhan waa ka soo horjeedaan annagay nala jiraan marka haddii la diido oo marka haddana xoog ku guuleysto dee waa diidaynaa waa iska dhicinayna arrintaasi waxay keenaysaa burbur haddii burburkaasi dhaco maxaa imaanaya SSC waxaan ugu baaqayaa inay furaan maskaxdooda iyo indhahooda garxajis in lagu soo daro SSC oo sanaag intay ka degan yihiin oo Ceerigaabo ay u noqoto magaalada xeebta waa iyo dekada gobol maamul goboleedka SSC laguna soo daro sool oo dhan iyo sanaag oo dhan laga dhigo oo inta la wada degan yahay la wada dego oo marka isaaq iyo daarood iyo hawiye iyo beesha shanaad ay hadda ku dhan yihiin marka laga reebo isaaq hadday ku soo biiraan ay ku dhan yihiin digil iyo mirif oo ah point xabada maqan 1 point ka maqan oo 4.5 ki Soomaaliya ay ku dhamaan lahayd na dadkii laga barakiciyay Ceerigaabo iyo Laascaano dib loogu soo celiyo oo marka ay degaan ka mid noqdaan oo kuraasna laga siiyo gobol iyo maamul goboleed degaan Soomaaliyeed oo isagu federal kaligiisba ah annagoo dhanna aan degno oo maal gashano anigu Ceerigaabo iyo Laascaano labada guriga ugu horeeyaan ka dhisanayaa hadii ay arrintu saa u dhacdo insa laga dhigo baan ugu baaqayaa maskaxday u fuqa hal furo hal waasi Soomaali midnimadeeda ku xiran hadii isaaq iyo daarood iyo hawiye iyo digil iyo mirif iyo beeshi shanaad kulli meesha la isugu keeno ummadu waa dhanta ummadu haday dhan tahayna iyaga lagu hiranaya waxaana suurtagal mustaqbalka